أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون إن الهوى شريك العمى. إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى قد ثاكلته عند ذاك ثواكل وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه وقد واجدت فيه مقالا عواذل ولن يازع النفس اللجوجا عن الهوى من الناس إلا فاضل العقل كامل إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى فقد ثاكلته عند ذاك ثواكل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع إن شاء الله تعالى أن جعلها إنان وحي إلهي قوة فتشيو أن إنكيد هذا أما أنكسو تشيديو wuxuu ku saabsan yahay ama ciwaankiisu uu yahay ittibaacu alhawa lahu walhawaan hawada oo la raaco iyada ayaa dulinimo ah iyada ayaa liidnaan ah iyada ayaa hoosayn ah. waxaan u baahannahay inaan fahanno hawadu maxay tahay raacitaankeedu ay ka dhalanayso dulinimada iyo hoosaynta iyo xumaantu ay ka dhalanayso. waxay yidhaahdaan culimmadu hawadu waxa weeye ruuxa naftiisa oo raacda waxay ka hesho oo ay jeceshahay ama waxyaalahaasi ha noqdeen waxyaala afkaar ah oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga khilaafsan madaahibta iyo afkaarta iyo aaraada ama iyadu ay samaysatay ama dad kale ay samaysteen oo ay ku raacday dariiqii allana khilaafsan taas hawo waa la yidhaahdaa. waxaa kaloo hawo la yidhaahdaa inay naftu raacdo waxyaalaha ay jeceshahay iyadoo oon ku miisaamin isna weydiinin allah tabaaraka wa tacaala raalli ma ka yahay mise kama aha iyadoona caqli iyo cilmi midna ku miisaamin wax alla wixii balwadeeda ee ay rabto inay iska raacdo iska daba gasho. arrimahaasi ayaa waxaa lagu tilmaamaa ittibaacu alhawa. arrintaa iyada ah waa dadka dhanka ay u badan yihiin aadamuhu maxaa yeelay dadku waa un laba ruux hawa raaca oo naftiisu say rabto uun iska raaca
cilmi iyo aqoon iyo garasho iyo daliil iyo burhaan isagoon midna weydiinin waxna ku dhisin siduu rabo uun iska yeela si alla sidii la qumanaatana mabda' ka dhigta kuwaasi waxaa la yidhaahdaa cabadatul ahwaa ama cabadatul hawa dadkaasi waxay caabudaan hawadooday caabudaan dadka qaybta labaadna waxay caabudaan allah tabaaraka wa tacaala isaga raalligelintiisay ku dadaalaan sharcigiisa iyo dariiquu soo dejiyeyna waa u maraan labadaasaa dadku u qaybsan yahay waxa saddexayn karaayo waxa weeye waa ruux mabda'iyan shareecada raacsan ilaahay tabaaraka wa tacaala ridihiisa ku dadaal isleh laakiin marar fara badan ay hawada naftu ay jiidanayso ay ka qaalib noqonayso haddana isa soo qabanaya oo mar ka adkaanaya ruux iska galabgalab ah oo xaalkiisu uu kolba dhinac u dhacayo adiga almuhim waxa weeye qur'aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa laga fahmayaa dadku labadaa dariiqunbaa la kala hayaa cubaaduraxmaan iyo cubaadul ahwaa allah tabaaraka wa tacaala naxariista badan kuwa caabuda iyo kuwa hawadooda iyo balwadooda caabuda hawada oo marka la raaco oo afkaartaa khaldan ibni aadamku dejistay yacni waxa weeye la soo gaadhay inuu ruuxu iska dabagalo iska raaco ama naftiisuba siday rabto uu iska raaco waa dalaal waaye xaqiiqada dalaalka iyo lunsanaanta wey qur-aanka kariimka ayaa macnaha tilmaamay oo ruuxaasi xaqiiqo waxa ah inuu ku tilmaaman yahay waa ruux lunsan oo dariiqii ka lumay ujeeddadii loo abuuray ka lumay xikmaddii ka lumay garashadii iyo cilmigii ka lumay waa ruux lunsan oo habowsan waay allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu aayaadka uu ku sheegay waxaa ka mid ah qul innii nuhiitu an acbuda aladiina tadcuuna min duuni illaah qul laa attabicu ahwaa'akum qad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin waxaad tidhahdaa nebi allow war aniga waxaa la ii diiday dadow inaan caabudo waxyaabaha alle ka sokow aad caabudaysaan inaan idinkala qayb qaatoon idinla caabudo taa waa la ii diiday qul laa attabicu ahwaa'akum sidaad rabtaanna anugu raaci maayo rabitaankiinna iyo waxaan daliil iyo cilmi ku salaysnayn oo aad soo gaadheen ood iska taqliidinaysaan ama idinkuba aad samaysateen inaan iska kiin dabagalo waa la ii diiday taa iyadaa qad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin haddaan iska kiin raacoon iska kiin dabagalana oon fikirkiinna iyo ra'yigiinna iyo alla waxaan ahaynoo la caabudo idinku raacana dee markaa waaban lunsanahayba mana hanuunsani sidaa ku dhe baa layidhi marka itibaacu alhawaa yuujibu dalaal waay hawada oo la raaco waxay waajibisaa lunsanaan saas daraaddeed baa qur-aanka kariimka allah ku xukumay tabaaraka wa tacaalaa in uu lunsan yahay ruuxa hawadiisa raacsani aayad kaleeta rabbi tabaaraka wa tacaalaa markuu la hadlayay aayad kale rabbi waa ka ku tilmaamay wa inna kathiiran la yudiluuna biahwaa'ihim bigayri cilmin inna rabbaka huwa aclamu bilmuctadiin in badanoo dadka ka mid ah dadka ayay luminayaan oo dariiqa saxdaa bay ka luminayaan kitaabka alle iyo sunnada nebi bay garab marinayaan hawadoodayna ku luminayaan waxay iyagu samaysteenee jeebkooda kala yimaadeen waxay naftoodu jeclaatay oon xujo cuskanayn taasay ku luminayaan oo dadka ay ku leexinayaan oo dariiq kaga leexinayaan
allahna tabaaraka wa tacaala waa midka u ogaansho badan kuwa xadgudbaya oo xadgudubka waxaa ka mid ah in ilaahay tabaaraka wa tacaala dariiqiisa aad garab marto intaana aadan ku gaabsanine addoommadiina aad ka shaqayso siday u garab mari lahaayeen oo u lumi lahaayeen allah tabaaraka wa tacaala arrintaa waa ogsoonye aayad kaleetana rabbi wuxuu ku leeyahay waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah yaa ka baadinimo badan oo ka lunsanaan badan oo ka habow badan ruux hawadiisa raacay hanuun alle la'aantii isagoon ilaahay hanuun ka yimid haysanin oo waxyigii rabbi aan haysanin oo baraahiinta cilmiga ee kitaabka iyo sunnada aan haysanin hawadiisa uun ruux iska raacayaa ka baadinimo badan yacni wax weeyaan istifhaamku waa bimacna nafyiyo cid ka baadinimo badani ma ay jirta wey inta ilaahay abuuray waxa ugu baadinimo badan oo ugu lunsanaan badan oo dariiqa xaqiyo sawaabka ugu fogaansho badan waa ruuxa hawadiisa raacay cilmiga iyo aqoonta intuu garab iska dhigay ama intuu muxuu ahaayey uusanba danayninba wuxuu rabo uun iska yeelay kaasi ayaa ugu baadinimo badan addoommada ilaah isla macnaha waxaa ku tusaya hawadiisa ruuxu hadduu raaco inuu lumayo oo aadan kulmin karaynin hawadaydaan raacaya waanan hanuunsanaanaya laba lays waafajin kara ma aha yacni waxa weeye waa biyo iyo dab meel isugu gee waaya ma soconayso nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi yaa daawuudu innaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabici alhawaa fayudilaka can sabiili illah daawuudow waxaan kaaga dhignay dhulka dhexdiisa mid yacni maamulkiisiiyo xilkiisa u dambeeya oo dad uga horreeyoo dhulka maamuli jiray oo aadamo kale ah ayaad uga dambaysaayoo xilkii baan kuu dhiibnay faxkum bayna annaasi bilxaq dadka waxaad ku kala saartaa ood ugu kala garsoortaa xaqa dariiqa alle tabaaraka wa tacaala ee cadaaladda aad dadka ku kala saar walaa tattabici alhawaa siday naftaadu rabtana ha raacin oo markaad dadka u kala garsoorayso aad muxuu ahaay kala xukumayso sida alla si aad rabto garta ha u ridin naftaadu siday rabtana ha raacin xujada iyo daliilka iyo dariiqa rabbi raac haddaad yeeli weydo ood hawadaada raacdo fa yudilaka can sabiili illaah oo dee markaa wuxuu kaa luminayaa ilaahay dariiqiisa tabaaraka wa tacaala meeshaa waxaa ka cad oo aayaadkaasi walaalayaal muujinayaan ruuxu hadduu ilaahay dariiqiisa yacni iyo jidka rabbi jeexay ee jannada rabbi iyo ridihiisa lagu gaadhayo hadduu ruuxu uu muxuu ahaayey ka leexdo midka garab yaallaayo waa inuu hawadiisa raaco naftiisu si rabto iyo hawadiisa ama afkaar isagu iska jeclaaday iska dabagalo afkaar iyo aaraa iyo madaahib dad kala dejisteen uu iska yeelo asagoon wixii miisaamin oo waxani ma saxbaa mise waa khalad cilmigeedii iyo xujadeedii iyo caqligeedii iyo midna isagoon raadinin midda iyadii macnaheeda waxa weeyaan waa lunsan yahay shakina ma leh oo dariiqii saxda ahaa waa garamarsan yahay macnaha qur-aanku waa faa'iideynaya waxaa kaloo qur-aanka kariimkii uu faa'iideynaya yacni hawadoo la raaco oo ruuxu wuxuu rabo uun iska dabagalo waxay iyaduna waajibisaa yacni hawaan iyo dullinnimo adduun iyo aakharaba ruuxu waa dulloobayaa li'anna waxaa lagu cisoobaa oo lagu karaamoobaa adduun iyo aakharaba sharaf lagu yeeshaa iyo qiimo ruuxu inuu allihii kownkan abuurtay dariiqiisii raaco yacni taasaad lagu kala sharaf badan yahay sida taa loogu kala fiican yahay bayna dadku u kala sharaf badan yihiin oo ilaahayna tabaaraka wa tacaala ugu kala dhow yihiin inna akramakum cinda allaahi atqaakum taasaa lagu kala fiican yahay oo lagu kala cizi iyo karaamo badan yahay haddii marka ruuxu dariiqaasi uu ka baxo waa dulloobayaa shaki ma leh adduun iyo aakharaba waa dulloobayaa naftiisa iyo shaydaan
kuwa insiga iyo kuwa jinniga shayaadiintaasaa lagu sallidayaa masaalixdiisii iyo danihiisii baa la halmaansiinayaa adduunka waa dulloobayaa shaki ma leh aakharana dullinimadii ugu dambaysay ee ka daran midda adduunka u dambaysa allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim buu macnaha ku tilmaamay oo ku sheegay waxaa ka mid ah aayaadka macnaha tilmaamaya aayadda fi suurati alacraaf rabbi tabaaraka wa tacaala tusaalaha ku bixiyey watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah famathaluhu kamahali alkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath allah tabaaraka wa tacaala wuxuu nebigiisa muxameda ku yidhi sala allahu calayhi wasalam nebi allow waxaa dadka ku dul akhridaa ninkii sheekadiisii iyo warkiisa muxuu ahaa ninkaasi waa ninaan siinay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala aayaadkanagaan siinay fansalakha minhaa markaasuu ka dhex siibtay aayaadkiibuu ka dhex baxay waa isaga tegey fa atbacahu shaytaanu kadibna shaydaan baa dabagaloo raacay bimacnaa insaankii ibni aadamku inta uu ilaahay aayaadkiisa raacsan yahay dariiqiisana ku socdo waa ilaashan yahay oo waa xirsi xidhan yahay yacni wuxuu ka ilaashan yahay xeruu ku jiraa ama guri buu ku jiraa meel xirsi xidhuu ku jiraa shayaadiinta iyo balaayadoo dhan buu meel yacni waxway xifdisan buu ku jiraa markuu ka dhex siibto wuxuu bannaanka ugu baxayaa yacni shayaadiintii iyo waraabihii iyo wax kastoo dhiba aayaadku macnahaasay tilmaamayaan fa atbacahu shaytaanu fa kaana min alghaawiin kadibna kuwaa lunsan buu ka mid noqday allah wuxuu yidhi walow shi'naa larafacnaahu bihaa haddaannu doonayno ninkaasi aayaadka sababtood baannu kor ugu qaadi lahayn intuu aayaadka qaato oo uu ku dhaqmo oo uu raaco oo baraahiinta rabbi tabaaraka wa tacaala ka diin dhigto ayaannu markaa kor u qaadi lahayn magiciisa qiimihiisa darajadiisa ayaannu kor u qaadi lahayn buu rabbi tabaaraka wa tacaala walaakinahu akhlada ila alardi laakiin dhulkuu isku dhajiyey markii la damcay in kor loo qaadoo la sharfo ayuu dhulkii ka fuqi waayey waxa uu ku dhegay adduunyadii iyo naftiisu waxay rabtay buu ku dhegay wuxuu ku dhegay adduunyadii iyo sakhaarifteedii iyo dhaldhalaalkeedii buu ku dhegay adduunyada xoolaheedii magaceedii kuraasteedii jagooyinkeedii jaaheedii yacnii wixii baa laga fujin waayo uu ku dhegay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu idhi waatabaca hawaah haddii ilaahay kitaabkiisii iyo aayaadkiisii uu ka tago ga dhex siibtayna hade waxaa xiga oo garab yaalla waatabaca hawaah sidii naftiisu rabtay buu marka raacay hadduu hawadiisii raacayna allah tabaaraka wa tacaala mithaalkiisa sifadiisa wuxuu ku tusaaleeya fiiri famathaluhu kamahali alkalb sifadiisa iyo tilmaantiisu cajabta leh waa sidii ey oo kale waaya ey sifadiisoo kale waay in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath haddii aad eyga erido oo aad caydhsato carabkuu laalaadinayaayoo caliyadaa ka socota waa hiraan hirahayaa haddaad eyga faraha ka qaadood iska daysana oo geedku hoos fadhiyo meeshuu fadhiya aad isaga daysoodan eryinna laba gooraba carabkuu laalaadinahayaayo waa hiraan hirahayaa yacni waxa weeyaan dullinimada ka muuqata iyo baahida iyo rafaadka ka muuqdaayay laba gooraba waa haysataa allah tabaaraka wa tacaala marka ruuxa hawadiisa raacay naftiisa balwaddeeda daacad u noqday si alla siduu ka helo yeela sharci rabbi aan qadarinin oon qiimaynin oon ilaalinin alle tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay eygaasoo kale ayuu ka dhigo waa dulloobay waa ruux dulloobay wey sidaas daraaddeed baa culimmada islaamku waxay dhihi jireen ina alhawaa lahuwa alhawaanu bicaynihi yacni waxa weeyaan hawada oo la raaco waa dullinimada lafteedii waa inaad dullowdaba wey macnaha waad aragteenoo adduunka haddaad indhaysaan oo si fiican ugu fiirsataan ruuxu hadduu uusan mabda' saxa ku soconin
kitaabka Allah iyo sunnada nebi uu ka xadhig furto hawadiisiya siduu rabo uu iska raaco maalinta dambe waxaad arkaysaa isagoo dulaysan oo siduu u yaalla aad yaabayso xataa haddii waxoogaa la yara daayo akhiiran marka dambe waxaad arkaysaa meeshuu ku dambaynayo iyo qaabka uu u dambaynayo inay tahay dullinimadii adduunyada hadduu adduunkii dulloobana dee dullinimadii aakharana shaki male taasi waa ka dambaysaayo hawl sahlani taasi ma ah qur-aanka kariimka walaalayaal macaanidaasuu tilmaamayaayo sharafkaaga iyo qiimahaagu wuxuu ku jiraa inaad hawada naftaada khilaafto oo aad ku bedelato inaad sharciga rabbiga raacdo saas daraaddeed ayaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii la weydiiyey man akramu nnaas dadka yaa ugu karaamo iyo sharaf badan wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam atqaahum midkooda ugu cabsida badan midkooda allah ku xidhnaantiisa ugu fiican midka cibaadaadka rabbi ilaalintooda ugu fiican midka xumaantii rabbi reebay ka tegitaankeeda ugu fiican kaasaa ilaahay agtiisa ugu karaamo iyo sharaf badan karaamuu ku noolaadaa sharaf buu ku noolaadaa sharafna waa ku geeriyoodaa sharaf iyo qiimana waa lagu soo saaraa ilaahay agtiisana wax wanaagsan iyo sharaf iyo qiimuhu kala kulmaa marka walaalayaal hawada raacitaankeeda natiijadeedu waa dullinimo sharciga rabbi raacitaankiisuna waa cizi iyo karaamo wey labadaa dariiq unbayna dadku kala hayaan hawadoo la raaco sidoo kale qur-aanka kariimka wuxuu inoo faa'iideeyey ama inoo sheegaya addoonku mar hadduu cilmiga iyo garashada iyo kitaabka iyo sunnada intuu meel iska dhigo waxay naftiisu rabto iyo hawadiisa rabto uu ku beddasho dariiqa uu qaado ilaahay tabaaraka wa tacaalaa wuxuu waayayaa ilaalintiisii wuxuu waayayaa yacni waxa weye hiilada rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu waayayaa yacni waxa weye waxaa laga baxayaa ilaahay garabkiisuu ka baxayaa wuxuuna mucarad u noqonayaa ilaahay cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala wax ilaahay ka ilaalinaya ma jiro fi lqur'aani alkariim buu rabbi wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala wakadalika anzalnaahu xukman carabiya walain ittabacta ahwaa'ahum bacdamaa jaa'aka min alcilm maa laka min allahi min waliyin walaa waaq qur'aankan waan soo dejinnay isagoo xugum carabiya ah yacni waa xugum yacni ku soo degay luqadda carabiga ah haddaad hawadooda raacdaa layidhi nebi maxamed baa lala hadlayaa ummaddana waa loola jeedaa hadalku nebigu sal alla alay wasalam yacni waxa weeye lagu wajahayaa ujeeddadu ummaddiisa waayo waa raacsanta haddaad hawadooda raacdo gaalada iyo gaala raacyada iyo afkaartooda iyo dhaqamadooda iyo dariiqyadooda khaldan haddaad raacdo alla wuxuu idhi tabaaraka wa tacaalaa cilmiga kuu yimid kadib yacni waxa weeya markaad hawadooda raacayso aqoontii baad leedahay cilmigii baad leedahay kitaab allah kuu yimid waxaa ku soo gaadhay wixii rabbi tabaaraka wa tacaala waxyigiisii baa ku soo gaadhay cilmigii adoo haya oo aqoontii leh haddii intaad meel iska dhigto aad hawadooda raacdo oo kuwan yacni waxa weeyaan dariiqa garab maray aad raacdo gaalada aad iska raacdo dhaqankooda raacdo gaala raacyada iyo munaafiqiinta iska dabagasho muxuu ahaayey firqooyinka khaldan iyo kooxaha khaldan ee kharriban ee dariiqa ka leexday aad iska dabagasho calashaani waad ka heshay uun bas ma aha cilmi iyo burhaan iyo caqli inaad ku raacday laakiin waad uun ka heshay hadday taasi dhacdo oo cilmigii kuu yimid intaad khilaafta hawadooda aad ka doorato maa laka min allaahi min waliyin walaa waaq maa laka min allaahi min waliyin walaa nasiir xagga rabbi tabaaraka wa tacaalaa cid weli ah oo arrimahaaga gacanta ku qabata xagga alle ka heli maysid cid alle kaa ilaalisa cadaabkiisa iyo cuquubadiisana heli maysid cid xagga rabbi kaaga hiilisana heli maysid garabkaagaa laga baxay waxaa kugu soo wajahan oo adduun iyo aakharaba aad qarka ugu saarantood halis ugu jirtaa ilaahay tabaaraka wa tacaala cuquubadiis allah tabaaraka wa tacaala cadaabkiis allah tabaaraka wa tacaala in xifdigiisii aad weyday iyo ilaalintii lagu ilaalin lahaa ilaan ibni aadam haddaynu nahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inugu xifdiyaa oo inugu ilaaliyaa oo ruuxa danihiisa adduunyo
iyo danihiisa aakharaba loogu ilaaliyaa wax kale ma aha waa markuu ilaahay xifdiyo amarkiisa iyo sharcigiisa iyo cilmiga xaggiisa ka yimid xadiidkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weeyaan tirmidi iyo keyrka ay soo saareen wasiyadii iyo dardaarankii nebigu uu jeedinayey in adeerkii cabdillaahi ibni cabbaas radia allahu tacaala canhu ardaah ayaa wuxuu ahaa yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaat ixfad illaaha yaxfadk allah xifdi tabaaraka wa tacaala wuu ku xifdinayaa allah xifdi wuu ku xifdinayaa maxaa laga wadaa sharciga uu keenay cilmiga ku salaysan baraahiinta ku salaysan kaas ku toosnow oo ilaali kaa haddaad ilaaliso oo xuduuddiisa ilaaliso oo aad shuruucdiisa ilaaliso oo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa aad ilaaliso allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kuu ilaalinayaa danahaaga iyo masaalixdaada adduunyo wuxuu kuu ilaalinayaa danahaaga iyo masaalixdaada aakharo adigoo dhan waxaad noqonaysaa addoon ilaashan oo la waardiyeynayo xagga rabbi baa lagaa waardiyeyn haddaadse intaad cilmigii iyo wixii rabbi kuu diray ka leexato aad taada ka doorato ama tur rag kale ay dejiyeenba aad iska raacdood iska dabagasho markaasi waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala xagga rabbi lagaa ilaalin maayo xagga rabbina lagaaga hiilin maayo xagga rabbina cid arrimahaaga yacni kuu dhowo arrimahaaga kuu tabantaabisoo kuu ilaalisa ma helaysid addoonkaa dayacan ee bannaanka yaalla ee shayaadiintii insigiiyo jinnigiiyo balaayoo dhan isugu tagtay ee ay duufsadeen farahana laga qaaday baad noqonaysa sidoo kale walaalayaal qur'aanka kariimka ah waxyaalaha uu tilmaamay inoo faa'iideeyey waxaa ka mid a ruuxa marba hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala sharcigiisii iyo dariiqii uu ka leexdo uuna ku beddasho inuu raaco siduu isagu rabo naftiisa iyo hawadiisa iska raaco naftaadu maxay rabtaa waxay rabtaa iska yacni waxa weeye muxuu ahaayey waxaanaan ka helay iska raac waan jeclaaday iska raac fikirkanaa ila qumanaaday iska raac war waxaan ma miisaantay miisaanka ma saartay yacni waxa weeye muxuu ahay maxaad ku raacday maxaa burhaan ah maxaa daliil ah maxaad ugu qanacday maxaad isaga dabagashay yacni waxa weye maye naftaydaa ka heshay waxoogaa dana iyo masaalix baan ku qabaa yacni waxa weeye waxoogaa waan iska jeclaaday waxoogaa maaragtay balwadaydaa ka heshay naftaydaa ka heshay waxa uuna hadday noqoto bacdaheedu waxa weeye qur'aanka kariimka wuxuu tilmaamayaa inay arrintaasi halaag tahay waa halaag muxaqaqa we halaag la hubo weeyaan allah tabaaraka wa tacaala nabigiisa muxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi falaa yasudannaka canha man laa yu'minu biha waatabaca hawaahu fatarda waxaa lagu yidhi yacni saacadda iyo qiyaamada soo socota u diyaargarowgeeda yayna kaa jeedinin kuwa aan rumaysnayn kuwa yacni qiyaamada iyo aakharaba aan rumaysnayn saacaddii iyo u diyaargarowgeeda yayna ku gara marin oyna kaa jeedinin oo hawadiisa raacay kadibna halaagsamay waatabaca hawaahu fatardaa midaan aakhare iyo qiyaamo rumaysnayn hawadiisana iska raaco maalin walba wuxuu ka helo iska dabagalaa mabda'u kolba maskaxdiisu tustuu iska raacaa wixii naftiisu rabto unbuu iska dabagalaa gaal baa keenay yacni waxa weeye waa dhaqan oo waxa la soo gaadhay saaxiibadii buu ku arkay naftiisaa rabto wuu iska dabagalay waxoogaa manaaficiyo wuu ku qabaa masaalix ah rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamayaa fatardaa waa halaagsamay markaa waa u dhammaatay waxaa kaloo rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka inoogu sheegay markuu ka sheekeeyey ambiya qiimo badan oo ilaahay rusushiisa ka mid ah nebiyullaahi ibraahiima calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam nebi muuse iyo nebi haaruun yacni waxa weeyaan sidoo kaleeto nebiyullaahi isxaaq iyo yacquub iyo markuu ka sheekeeyey nebi ismaaciil nebi idriis ambiyadaa markuu si gaaban rabbi uga sheekeeyey iyo waxii ay ahaayeen iyo xaqasay u raacsanaayeen markaa kadib baa wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu asalaata waattabacuu ashahawaat fasawfa yalqawna ghayaa yacni waxaa ka dambeeyey rusushaa qiimaha badan
الله أماني تبارك وتعالى كواسي مركي تغين كداشو دا وحا يميدو كدن بي كوا صلاة دي ضيعي واجباتكي ربي ضيعي شهوات كودي النفتو دو وحي ربطنا الراعدي علوش هذا درشي يعني وحويان فرجي كاقا درشي غرائزتي الشهوات كاقا النفط هذا ضاعد النقو الدنيا دا اساقات تمشلي واجباتكي ربنا واد ضيعين ها صلاة دي بمثال لقدقي لأن الصلاة دو أفعاشة وحني لها عبادات كعملي أيا وحي أطهي هردق أطهي أما أساس أطهي صلاة دي بيضيعين نفتو دا الشهوة دي دانا وإسكر راعين ها سيحدا مركي ترادا وإسكر سيحدان صلاة دي ولا أديمة يحيي على الصلاة حي على الفلاح war salaada uu kaalayo liibaanta uu kaalaya hurday ka doorteen salaadii oo loogu yeedhayo shahawaadka iyo adduunyada eryigeeda ka doorteen afkaar kale iyo balaayo kale qaateen oo salaadiiba waaba liideenba war maxaa lala foorfoorsan bay ku leeyihiin maxaa lala foorfoorsan oo dadkan ka maqan afkaar kale iyo gaalnimo iyo kufri iyo balaayo kale la raacay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri فسوف يلقون غيا وحي لكل مدونان غيّا علماء قاركود وحي ليهن وضلال إيا اللنصنان قارنا وحي ليهن مئه وواد في جهنم وتق نار او جهنم دحديده ku yaala dadkaasi marka waa ku daayeen sidoo kale quraanka kariimka wuxuu tilmaamayaa dadku markay hawadooda raacaan kuwa hawadooda raacay أفكارت خلدن رعسن نظامية خلدن رعسن دساتيرت خلدن إلهي تيسي قرب مرسن رعسن أما دجستي أما كوا كسو قاري أما كوا كسو قاتي أو كسو إرقستي إيا كوا كو رعسن هدي حقه إلهي حقي سكيمت دادكو سيدي الربان إيا هودو دا راعي لها دولك إيا صمدو بوا فسادي لها وحجيري لها بمالي dhulkan iyo samaawaadkani waxay ku jiraan oo ay ku taagan yihiin oo ilaahay tabaaraka wa tacaala khalqigiisan ugu naxariisanaya oo roobku ku imaanaya oo dhul yani dalaga ka soo baxaya dhulka ka soo baxaya uu ku soo baxaya oo sideedaba noloshu ay ku jirtaa wax weeyaan waa raacitaanka xaqa waa raali gelinta alle laakiin dadku hadii xaqa ilaahay soo dajiyo sida iyagu rabaanay khaldan iyo rabitaankooda haduu raaci lahaa te samaawaadka iyo dhulku way baabi'i lahaa waba la fasaadi lahaa Allah tabaaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim معناها آيات الماميسة وحو كيري ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون حدي حق الراعي لها سير ربان سي يقول ربان هدو حق نقولها لقد بقلي لها وحق ألا سودتشي سيدي الربان وكل راعي لها وحا فسادي لها السماوات إيا نولك إيا إنت كل حنول يعني وحا فسادين إياه وهوذا ابن آدم كوحو دجستي أو سميستي أفكارتا إيا مباديدا أو سميستي إيا الدستوركا إيا وحو رقن كدكتي إيا نفتيسا سيدي ربطو إنو إسكادا وقلاي مدى إيادي سماواتك إيا نولالك إيا إنت أودا حيسابا لبي أو كانستا هدي حق الراعي لها أو وحي الراعي لها أو يعني نبي الراعي لها أو ضدك أهل الحق أنا كوا إسكادا وقالا لديه لهانا وحاري لها بمجربة الله تبارك وتعالى وحول بل أتيناهم بذكرهم أرنتو هودو دول الراعميه وحانو يعني أولاني مدبو ربي تبارك وتعالى ذكري قودي بان أوكيني وحي هودا كسحي لها داودي بان أوكيني فهم عن ذكرهم معرضون لكن ذكري قودي حسوسين تودي حقي لو كيني ألا أسودتشي noloshooda lagu saxayay khatarta lagaga ilaalinay waaba ka jeedaanba tanba kama lahaba waxana iska daba joogan waxay u daba joogan wax kala ma aha waxay ku leeyaan waan arki jiray waxaan soo gaarnay waanu maqli jirnay waanu u soo joognay xeer buu noo aha
aabbayaal iyo awowyaan ka soo gaadhnayay isir bay ku leeyihin kuwo kale waxay ku leeyihiin maya war waxaan maxaad u daba socotaan maya adduunkii baa hadda maanta meeshan maray dhankanaa loo batay adduunkii oo dhan baa xagga u wada socdee miyaanu khilaafi karnaa ha dastuurkan iyo andimadan iyo waxaan waa wax la wada wato adiga ma adduunka dhinac uga bixi kartaa haa wixii baa marka inta la raacay yaa ilaahay kiisii tabaaraka wa tacaala iyo dariiqii adduun iyo aakhiraba ku hagaagi lahaayeen ayaa la garmaray hawaa la raacay ama midaada ha noqoto ama mid dad kale ay dejisteen iska dabagalo ku raac labadaba hawa raacnimo wey ama naftaada balwadeedii iyo shahwadeedii inaad iska daaqsato oo ay noqoto sida xayawaanaadka kaleeto kuluu darhum ya'kuluu wayatamattacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun iska daabaalili kuwaasi yani waxa weye ha iska cuneen darhum ya'kuluu yatamattacuu ha iska raaxaysteen wayulhim ididiiladuna yani waxa weeye ha mashquuliso ididiilada beenbeenta iyo filinka beenta ana ha ku mashquuleen ha iska mashquuleen ha cuneeno ha cabbeen xogaa adduunyadaasi maaweeladaasi iyo filinka ha isaga jireen way ogaan doonaan daabaa la yidhi faraha ka qaad kuwan daabaa rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala macnaheedu maxay tahay marka dadka qaarna waxbaa maba ogaba ilaahay aayaadkiisa waaba moogyihiinba laakiin beddelkeeda bahashaa adduunyada ah ayay ku mashquulsan yihiin ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati addunyaa waطma'annuu biha waaladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum annaaru bima kaanuu yagsibuun kuwa aan rajaynaynin buu rabbi tabaaraka wa tacaala la kulankanaga inay aniga ila kulmayaan rajo kama qabaan ma rumaysan waxay raalli ku noqdeen adduunyada iyaday ku xasiloon yihiin aayaadkanagana waaba moog yihiin ilaahay waxyigii ka yimid qur'aankii ka yimid sunnadii nebigiis waaba moog yihiin kama warhayaan ulaa'ika wahum can aayaatina gaafiluun aayadahana waa moog yihiin waxba kama warhayaan ulaa'ika ma'waahum annaaru bimaa kaanuu yagsibuun naar bay leeyihiin dadka qaar mabda' kale male mabdi'iisu waa calooshiisa mabdi'iisu waa kursi ku fadhiiso mabdi'iisu waa yacni magac yeelo mabdi'iisu waxa weeyaan waa yacni jaga samayso mabdi'iisu wax kale maba ahaba farjigiisa iyo calooshiisuu ka shaqeeyaa mabda' kale male kaasi waa midka la yidhahda shahwa raacwa waa nooc hawada ka mid li'anna ibni aadamka naftiisa sida ay culimmadu qeexayaan nusuustana laga qaadanayo laba arrimood baa yaa sideedaba nafta bini aadamku ay ku inxiraaftaa oo ku leexataa midii waxa weeyaan waa itibaacu shahawaat midna waa itibaac ashubuhaat shubuhaadku waa afkaartiiyo mabaadi'da khaldaneen ka hadlaynay hadda shahawaadkuna waxay naftu jeceshahay iyo raaxadeeda iyo say rabto iyo inay iska dabagasho oo aan muxuu ahaye aadan xakamaynin dawaabid sharciyana aadan ku ilaalinin labadaasiba hawaraacnimo la yidhaahdaa waana macnaheedu waxa weeye waa fasaad bicaynihi fasaadka laftiisii waa oon meel kale loo raadinaynin waa waxaa kaleeto oo qur-aanka kariimka inoo tilmaamaya dadku waa laba dad raacsan nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo dariiqiis dariiqaa dadka aan raacsanayni waa dadka hawadooda raacsan haddaad yeeli weydo ilaahay taladiisa iyo amarkiisa iyo sharcigii nebi moxamed la yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xagga rabbina uu ka keenay haddaad yeeli weydo macnaheedu waxa weeyaan hawadaada unbaa yaa kugu xigta waxa ku xigaayi waa inaadun hawadaada raacdo adugu waxaad doonto sheego nasraaniye sheego hawaraac baad yahuudiye sheego hawaraac baad afkaar kale sheego hawaraac baad intaa midna yacni ha raacine yacni waxa weeye balwadaadown iskala noolow oo diin la'aanba iska noqo hawaraac baad kullu daalika waxa weeyaan hawaraacnimo wey maxaa yeelay rabbigaan tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka wuxuu ku yidhi fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin haddaynan ku yeelin nebi maxamedow haddayna ku ajiibin haddaynan muxuu ahaayey kaa aqbalin waxa aad ula timid waxaad ogaanaysaa
waxa in raacsan yihiin wax kale ma hawadoodun bay raacsan yihiin hadday adigii inay ku raacaan diideen waxa xigaayi waa un hawadooday raacsan yihiin naftooda unba iska dabagalan iyo siday rabtay yaa ka baadinimo badan cid hawadiisa raacday hanuun alle la'aantii hanuun alle ma hayo waxyi ma hayo dariiqii rabbi ma hayo hawadiisu raacay kaas yaa ka baadinimo badan cid ka baadinimo badani ma ay jirto allah tabaaraka wa tacaala ma hanuuniyo dadka daalimiinta ah ee hawadooda raacay ee siday rabaan iska yeelay ee noloshooda ka dhigtay uun keliyeeta mid ilaahay tabaaraka wa tacaalaaba uusan nasiib ku lahayn yacni waxa weeyaan qalbigaaga alla waxba kuma leh xubnahaaga waxba kuma leh xoolahaaga waxba kuma leh carruurtaada iyo gurigaaga waxba kuma leh yacni waxa weeyaan si alla sidaad rabtood adugu jeceshabaad iska martaa rabbigaa tabaaraka wa tacaala ama maba rumaysnidba sida dad badani ay yihiin ama jiritaankiisa waad rumaysan tahay laakiin wax intaa ka sokeeya oo uu noloshaada ku leeyahay ma jirto dadkaasi dad ka baadinimo badan oo ka lunsanaan badani ma ay jiraan macnahaasuu qur-aanku kariimkii tilmaamaya dadku marka waa labada atbaacu rasuulillaah iyo atbaacu alahwaa yacni ruuxa dad hawadooda raacsan iyo dad nebi maxamed raacsan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka qaarkooda waxaa jira xoogaa marna dariiqaa nebigu sal alla alay wasalam ku dadaalaya raacitaankiisa marna hawadu yara jiidanayso markaasaa waxoogaa noloshiisu way isku yara qasantahay waana dadku say u yara badan yihiin yacni khaasatan dadka ahlul iimaanka marar fara badan waxaa dhacaysa waa gelabgelab martanaa la tegi wuu isa soo qaban wuu is yara celin meeshii buu isku yara xakamayn waa isqasbahayaa haddana way ka xoog badanoo way kaxaysan yacni kaasi waa ruux dagaalamaya oo lagatamaya wey asagiiyo hawadii baa lagatamaya inay ka rayso dhinac u ridatana waa dhici kartaa inuu ka reeyo oo uu kaxaystana waa dhici kartaayoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uga kaalmeeyo sharkeeda laakiin waxa weeyaan dadku asal ahaan labadaasay kala raacsan yihin ninka la yidhahda abu isxaaqin shaatibi calayhi raxmatullah kitaabkiisa jaliilka ee almuwaafaqaat fii usuuli shariica muxuu ahaayey markuu ka hadlayey dadku labadaas weeyaan buu yidhi qur-aanka kariimkaana macnahaasuu tilmaamaya dadku waa un laba dadku inay yihiin ruuxu hawadiisa inuu raacsan yahy iyo inuu ilaahay sharcigiisa raacsan yahy aayaduha qur'aankuna macnahaasay tilmaamayaan qaar ka midana waa inoo imaan doonaan dadka hawadooda raacsan sidoo kaleeto shareecada waa khilaafsan yihin ilaan meesha lagu kala baaya maxagku waa halkaa yacni ruux wuxuu jeclaa buu ka tegey waxay naftiisu rabtay buu ka tegey wuxuu arki jiray caadaystay buu ka tegey wixii uu yacni ka jiray adduunka buu khilaafay muxuu u khilaafay liitibaaci sharci illaah liirdaa'i illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay sharcigiisa raac rabbigaana raalli keli wixii ka soo hadhayna haddanaynin dariiqaa qabso oo ku mitid ruux halkaasuu maray ruuxna ma ahee dhanka kaluu maray sharciga rabbi ruuxa raacsani hawo waa ka ilaashayn marmarka qaarkood waa dhici kartaa inay waxoogaa ilduuf iyo simbirraxa ku timaado ruuxa hawadiisa raacayna sharci ilaahay waa isdaayeen aayaad badan baa macnaha tilmaamaya allah tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a aayaadka uu arrintaa ku tilmaamay falidaalika fadcuu wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum nebiga alle waxaa lagu yidhi yacni falidaalika fadcu khayrka iyo tawxiidka dadka ugu yeedh oo ugu baaqo arrintaa ka shaqeeya nebi maxamedow dariiqa allana ku toos sida rabbi kuu amray sida amarka laguu siiyeyna u qaado ugu toos baa layidhi walaa tattabic ahwaa'ahum hawooyinkoodana ha raacin kuwan kaa horjeedee ku diidan rabitaankooda iyo hawadooda ha raacin u fiirsa marka dariiqa rabbi ku toos hawadoodana ha raacin waa un labadaa dariiqa rabbi ku toos allah tabaaraka wa tacaala raaligelintiisa iyo jidkiisa iyo sharcigiisaaad ku socotaa haddaad kaa ka dhacdo oo aad ka leexato dad hawadood baad haysaa marka qabiil iyo oday dhaqameed iyo xeer ayaa dariiqiisa haysa hawo iyo afkaar
gaala dejisatay oo gaalo laga keenay baad raacsan tahay ma ahee naftaadu waxay kugu akhridood adigu isu sheegtay oo shahawaadkeediiyo siday rabtay abaad raacsan tahay laakiin sharci rabbi wa tabaaraka wa tacaala ayaa dariiqii toosna waad gara martay waxaa la mid a aayaddaasoo ku macno dhow aayadda rabbi tabaaraka wa tacaala sidoo kale uu yidhi huma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun waxaan kaa yeellay nebi allow shareeco korkeed baan ku yeellay oo amarka ah shareeco amar alla ah ayaanu yeellay oo muxuu ahaayey ayaan ku yeellay korkeeda inaad ku socoto ayada raac baa layidhi ayada raac hana raacin kuwa aan waxba garanaynin ahwooyinkooda ha raacin ninka aan waxba garanaynin waa ninaan waxyi alla aqoonin kitaab alla aqoonin sunno nebi aqoonin wixii adduunku ahaan jiray soo maray aan aqoonin kutubtii ilaahay soo dejiyey aqoonin rususha aan garanaynin rabbi xaqii aan garanaynin meeluu u socda aan aqoonin waxoogaa uun yacni waxa weeye inda ku garaadlo ahoo maalintaa waxoogaaga ka hor muuqda mooye aan garanaynin war maxaa soo socda war maxaa imaanaya war noloshan xaggee looga guuri doonaa war xaggee lagu dambayn doonaa war kownkan cidda ka talisaayee ku abuurtay maxay kuu abuuratay su'aalo fara badanoo noloshiisa ku saabsan kama jawaabi karo waa jaahil kuwa aan waxba garanaynin dariiqoodiiyo hawadooda ha raacin sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala kaa isagaa raac baa nabiga la yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum dadka waxaad ku kala xukuntaa ood ugu kala garsoortaa ilaahay wuxuu soo dejiyey nabigaa lagu leeyay salawatu rabbi wasalamu caleyh ahwaadoodana ha raacin sharciyada ay dejisteen waa dastuurka ay dejisteen waa nidaamka ay dejisteene sharciga rabbi khilaafsan wey ama cidda dejisanaysa islaamnimo ha sheegato ama yayna sheeganayna gaalaba ha ahaadeen waxyaabaha ay dejisteen dadka markaad u kala garsoorayso ha ugu kala garsoorin ee waxaad ugu kala garsoortaa wixii ilaahay soo dejiyey dadka marka waa laba mid nin hawadiisa ama hawo nin kale garsoor ka dhigay oo xeer ka dhigay oo dastuur ka dhigay oo ummaddii ku kala saaraya oo maxkamadaha u dhigay hawa raac wey isagiiyo inta raacsanba hawa raac wey kaa waxaa garab yaalla nin ilaahay sharcigiisa dadka ku kala saaraya allah baa yidhi rasuulkiisaa yidhi culimmadii islaamka iyo saxaabadii kutubtii fiqiga iyo diintii dariiqaasi dadka ku kala saarayaay kaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyey yuu dadka ku kala xukumaya marka labadaas wey labadaa nidaam baana adduunka ka jira labadaa nidaam unbaana adduunka isku haya adiga marka waxaa loo baahan yahay haddaad muslim tahay ficlan dee khiyaarba kuma furraba khiyaarka kuu furani yacni keliyata waxa weye waa hal khiyaar ilaahay wuxuu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala maadaama aad iimaanna sheeganayso yacni allana tabaaraka wa tacaala aad janno ka doonayso inuu cadaab kaa badbaadiyana aad doonayso inuu adduunka ku xifdiyana aad doonayso dee khiyaar kuu furan ma jiro xaqii uu kugu lahaa gudo wa waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha qur'aanka kariimkii uu tilmaamay hawada raacitaankeeda wuxuu gaadhaa inuu ruuxu marka dambe hawadiisaba ilaah ka dhigto meeshaana waxaa ka soo baxayo qur-aanka kariimkii tilmaamayaan dadku waa laba qaybood qayb allaha xaqa ah bay caabudaan dadna naftooda hawadeeda ama dad kale hawadood bay caabudaan oo ilaah u ah ruuxa allaha caabudaayey waa ruuxa ilaaliya ridaha rabbi iyo dariiqiisa amarkiisa iyo sharcigiisa ilaaliya kaasuu alluu caabudaa ruuxa naftiisa amarkeeda iyo nidaam iyo shuruuc iyo afkaar iyo madaahib dad kale ay dejisteen raacsanna wuxuu caabudayaa hawadiisuu caabudayaa balwaddiisaa ilaah u ah ruuxa shahawaadka uun intuu ku dhex fakaday naftaadu maxay ku tidhi khamrada cab iska cab qaadka cunbay ku tidhi ka amar qaado iska yeel waxay ku tidhi waxba yacni waxa weye iska raaxaysoo iska jiif toos oo iska foof
sida xoolihii soo xarood iska raac naftaada naftiisuun waxay ku tidhaahda ruuxa dabagalaya ilaah kale male bimacnaa waxa weeyaan macbuudka uu caabudayo maalinta qiyaamada marka la tagana raac la dhihi doono waxa weeyaan waa naftiisa hawadeeda waa allah tabaaraka wa tacaala dadka labadaasuu ka dhigay wuxuu rabbi yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa bal ka waran midka ka dhigtay allihii uu caabudayey waxaan u jeedaa ilaahii uu caabudayey buu wuxuu ka dhigtay rabitaanka naftiisuu caabudayaa wa adallahu allahu calaa cilmin allana wuu lumiyey kaa isaga ah yacni cilmi korkiibuu ku lumiyey wa khatama calaa samcihi wa qalbih allah wuxuu daboolay tabaaraka wa tacaala maqalkiisa iyo qalbigiisaba wa jacala calaa basarihi ghishaawa araggiisa korkiisana wuxuu yeelay dabool ayuu saaray rabbi tabaaraka wa tacaala faman yahdiihi min bacdi illaah allah gadaashii yaa hanuunin kara afalaa tadakkaruuna miyaydaan waana qaadanayn war miyaydaan wax fahmayninoo waana qaadanayn allah tabaaraka wa tacaala addoonku markuu dariiqiisa lagu kari waayo oo uu wax kale ka doorto oo uu ahwaadaas raaco waxa lagu samaynaya waxa weeyaan kow maqalka iyo qalbiga waa la khatminayaa inta la xidho ayaa weliba waxa weeyaan waxaa la saarayaa shaabad waa la shaabadaynayaa wax khayra ma geli karo waa ka xidhanta indhihii iyo araggiina dabool baa laga saarayaa inuu xaqii arko wanaaggii arka ayaa xaajis ka teeda ayaa laga saaraya markaa kadib qaab uu hanuuni kara maba jiraba waa cuquubo rabbi wey tabaaraka wa tacaala falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum waa markaad adigu leexatoo lagu kari waayo dee yaa kaaga daba xun qalbigaagii waa la leexinhayaayo meeshaad u leexatay baa usha dabada lagaaga dhufano meeshaa unbaad aadi adiga unbaana yani midhaheeda xun iyo dhibaatadeediiyo adigaa guranaya oo gurubsanaya waa macnaheedu waxa weeye mabda'aas naftiisa inuu daacad u noqdo hawadeeda raaco ama afkaar dadejiyeen iyo hawadooda inuu raaco taasuu ku noolaanaya taasuu la noolaanaya taasuu daacad u noqonaya taasuu dadka kula dagaalamaya ayaduu kula colloobaya ayadaasuu ku soo dhawaysanaya kuu soo dhawaysanayo sida rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka uu ku sheegay ummadaha qaarkood afa kullamaa jaa'akum rasuulun bima laa tahwa anfusukum istakbartum fa fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluun war mar kastoo rasuul idiin yimaado cid ilaahay ka socoto alla soo dirsaday markuu idiin yimaado oo uu idinla yimaado waxayna naftiinnu rabin waad isweynaysiinaysaan waad iskibrinaysaan fa fariiqan kadabtum rusushii idiin timid ee wanaagga idiin sheegaysay qaar waad beeninaysaan waad diidaysaan waxay wateen baad ku gacan saydhaysaan wa fariiqan taqtuluun koox iyo qayb ka mida rusushiina waabad laynaysaanba waa midda hadda maanta jirto ducaadda iyo dadka ahlulxaqa ah iyo culimmada iyo dadka khayriya sheegayaasha ah yacni waxa weeye ruuxu markuu afkaar iyo mabaadi intuu dejisto sidaa uun iska jeclaado ninkii ugu yimaada asagoo meeshii khaldanayd ku socda in yaroo ilaahay u naxariisto hanuun ugu talagalay mooye waa isla weynaanaya wuxuu ku leeyahy war wadaadkaagaani maxaad ahayd adiga maxaad ahayd xageed ka socotaa janalkeed igala hadlaysa adiga haa hadduuba macnaha xataa hadalba kuu quudhaba isla weynan iyo kibir khaasatan hadduu yahay waxoogaa uu isyara bido inuu waxoogaa adduunyada wax ka yara garanayo haa waa brofesor dhakhtar ah waa brofesor yacni waxa weeye cilmiga handasada iyo engineering waay waa brofesor fi lfisiya waa brofesor waxoogaa cilmiga iqtisaadka iyo dhaqaaluhu garanaya waa brofesor fi lculuum oo siyaasadda iyo sayniskii waxbuu yaro garanaya yacni magac buu yaro yeeshay jid khaldan iyo kharibanna waa saaranya markaasaa markaad u timaadoo tira warriyo wax ma kuu sheegaa war wax ma kuu sheegaa yacni waa afuufmaya isaga dhanba yacni balaayo kaluu noqonaya waa kibrayaa waa isla weynaanayaa ciddii wax u sheegi lahayd buu xaqirayaa ahlulxaqii buu xaqirayaa markaasuu wuxuu bilaabayaa inuu qaar ka midana uusan kaba dhegaysanin oo ku diido hadduu awood leeyaho dawlad haysto oo markaa awood leeyahayna inuu laayo xabsiga ku guro kala tuuro dhammeeyo cadaadiyo ayuu isticmaalaya maxaa keenaya hawadiisiiyo siduu rabay unbaa la khilaafay
allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal marka wuxuu tilmaamayaa dadka noocaasi waa dad hawa caabud awa afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa afa anta takunu calayhi wakiila aayaadkaasaa tilmaamaya waxaa ka mid ah oo qur-aanka kariimka waxyaaluhu sheegay ka mid ah ruuxa hadduu hawadiisa raaco lagu ibtileeya hawa raac inuu noqdo waxaa lagu ciqaabaa mawcidada iyo waanadu ma anfacdo wax sheeggu ma anfaco wacdigu ma anfaco tiisuu ka raacanayaa ama maba dhegaysanayaba dhag jalaq uma siinayo ama hadduu dhegaysto xataa ma intifaacsanayo ilan waa xidhan yahay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وحاكم إذا ضدك لقيسنا يا كم إذا قال ذا مركي أكت هذا كاكاكعان ويتشوغان ويكو لقيسنا يان ويكو مقليان مركي كاكعان وكاكتغان ayaa waxay ku leeyihiin dadkii cilmiga la siiyey raggii kula joogay ee cilmiga lahaa ee ka qaatay ee bartay ayay waxay weydiinayaan markay meesha ka tagaan kadib maada qaala aanifan war mar dhaweyd muxuu lahaa darsiga waa la wada fadhiyay waa la wada dhageysanayay kana cilmi iyo wanaag iyo wuxuu ka qaatay khayr kana wuxuu leeyahay war shanqar baan maqlahay iyo hadal wadaad muxuu ahaayay hadallayaan maqlahay maxaa la lahaa markii dhaweyd oo Soomaalidan fadhiin ma yahay muxuu ahaayay hawla kalan ku mashquulsanaa maalmahan siba wax iga ahaayeen maxaa la sheegay wadaadkii maanta qilqiliyay muxuu lahaa maada qaala aanifa allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala kuwaasi waa kuwa ilaahay quluubtooda daboolay hawadoodina raacay taas weey macna inta badan dadka hawada raaca afkaarta khaldan raaca kooxaha khaldan raaca madaahibta khariban raaca ta iyagu ay xaqooda kala yimaadeen iska dabagala inta badan mana waan samaan waxna ma qaataan maxaa yeelay waxba ku qufulan waana la qufulay khayrku marka uma daadago kamana daadago waana cuquuba ilaahay tabaaraka wa tacaala adoonka markii la kari waayo uu jeesado yaa ilaahay ku ciqaaba tabaaraka wa tacaala waxa kamida oo arintan ugu dambeeysiinay ay tahay maadaama waqtigu dhamaaday quraanka kariimka wuxuu tilmaamay naftaada iyo hawadeedood raacdo oodan iska xakamaynin oodan hawadii cilmi iyo aqli ku miisaamin oo sharci rabbi tabaaraka wa tacaala aadan ku xakamaynin arintaasi waxa ka dhalanaya oo natiijada ugu dambeysay ku gaarsiinaysa naar iyo cadaab rabbi tabaaraka wa tacaala nihaayadii iyo dhamaadkeedu waa sida adduunka iska tamashle naftaada balwadeeda daacad u noqo afkaarta khariban iska dabagal يعني waxa weeyaan iska soco laakiin waxaad ogaataa waxa lagu sugahayaa maalinka dhimato halkaas lagu fadhiyaa halkaas lagu sugayaa maalinka adduunkan aad dhaaftana waxa ku dambeeya waa inaad goosato beertaad beeratay midhaheedii khadhaara rabbigan wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ruuxii ka baqa alla hor istaagiisa ku tashada ilaahay inuu hortagi doono inuu la xisaabtami doono inuu abaal marin doono ruuxii ka baqa hor istaagida alle ku taragala naftana ka reebo ka celiya waxa ay doonayso waxay rabto balwadeeda afkaarta khariban shahawaadkeeda nafta ka xakameeyo ka celiya fa innal jannata hiya al-ma'wa jannada alle ayaa hoygiisa maxaa looga dhigay jannada gelitaankeeda shardi waxa looga dhigay laba qodob inaad ilaahay hor istaagayso ood hortagayso inaad rumaysan tahay una diyaar garowdo tabaabushaysato waa qodobka labaadna inaad naftaada rabitaankeeda iyo meeshay ku wadato iyo dhankay ku jiidayso aadan raacin iska celiso ood ka xakamayso oo aad iska ilaaliso labada qodob ayaa janno hoygeeda ku geynaya waxaan ka fahnay quraankuna meelo badan ku cadeeyay haddaadan nafta
siday rabto iyo hawadaada aadan iska celinin waxaad ku talagelaysaa meeshay kuu wado waa naar xadiidka nabigaana cadaynaya xadiidu abi hurayra iyo waliba anas oo imaam muslim alayhi rahmatullahi uu soo saaray wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naaru bish shahawaat yani jannada waxa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu neceb tahay waxyaalahay naftu neceb tahay waa jannada xayndaabkeeda waa darbiga jannada haddaad ka gudubto bimacnaa jannadii baad geli nafta haddaad ku xambaarto waxay neceb tahay ay diidantahay khayrka ah bimacnaa jannadii buu ku geynayaa naartana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu doonayso haddaadan ka celinin ood ku sii dayso oo waxay doonaysa ay daaqdo oodan miisaanka cilmiga iyo sharciga iyo xikmadda iyo caqliga aadan ku xakamaynin bimacnaa waxa weeyaan waxay kula dardaraysaa xayndaabkii naartay kula dardari kadibna way kugu tuuri sabab bay u noqonaysaa cadaab ilaahay gasho tabaaraka wa tacaala walaalayaal marka waxaynu joognaa warka murtidiisa adduun fasaadsan baynu joognaa adduun gabagaba baynu joognaa meesha aad joogtaani kaba sii daran fasaad iyo يعني waxa weeyaan afkaar khariban iyo muxuu ahaaye inxiraafaad iyo adduunyo caabud iyo mabaadi'dii saxda ahayd oo la xaqiro la yaso ayadoo la gacan bidixeeyo meeshii asalka u ahayd baad joogtaan meel walbo adduunka ka midana nasiib iyo qayb bay ka haysataa ha u yaraato ha u badnaato maanta wuxuu u baahan yahay ruuxa muslimkee nool diintu waxay ka dhigan tahay siduu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam xilliga qurbaha oo kale sidii sunnada iyo dariiqa saxsan inuu ruuxu laazimo dhimbil dab ood gacanta ku hayso kale ka dhiganta war dhimbisha dabka aan ninkii hayo ku sabra ayaa midhaheeda goosan doona ninkii ku sabri waayo oo hayn waaya oo iska tuura oo hawooyinka iyo mawjadahaasi iyo waxa raaca waxaad ku talagalaysaa waxaad nooshahay oo joogayso waa maalmo haddii lagu daayaba waxaadna ku talagalaysaa masiirkaaga iyo ayahaagu waa meel muxuu ahay khariban wey sidaas daraadeed walaalayaal sharciga iyo hawada yaynaan isku garab wadin hawadu hadday inala tagtana aan soo qabanno sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala aan isku celcelinno isku xakamayno allah awaamirtiisa iyo xuduudiisa aan ilaalinno had dhaqaalahaaga iyo gurigaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga iyo noloshaada fardiga iyo cibaadadaada iyo caqiidadaada iyo noloshaada maalinta ah iyo midda habeenka inaad ku ilaaliso isku celceliso ilaahay tabaaraka wa tacaala sharcigiisa intaad kari karto maalmaha yareed adduunka korkiisa joogto kadibna insha Allah tacaala aad ka nasato dhibkan iyo kadeedkan iyo rafaadkan iyo walbahaarkeedii cudurkeedii rafaadkeeda aad ka nasato bacda al-mawt geeridaasi kaga nasato janna rabbi tabaaraka wa tacaala iyo ridihiisa iyo mustaqbal wanaagsan iyo raaxo iyo wanaag aad uga gudubto laakiin mushkila waxay ku haysataa waxoogaa hawadaas iyo dhalanteedkaasi adduunyadu intuu ku kharibo kadibna meel cidla inuu kaaga dhaqaaqo xilli aad muxuu ahaay ugu daciifsan tahay waxba aadan qabsan karin mindii uus ku tagtay tala kala fakatay waxba ayna kula oolin aan laga yeelaynin waxoogaa bal hal la xiliyo jaanis kala hal la isiyo aan laga yeelayn ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna xifdiyo oo diintiisa haynagu xifdiyo oo naftiya sharkeeda allah inaga xifdiyo oo ahwaada iyo afkaarta khariban allah inaga xifdiyo oo allah inagu xifdiyo dariiqii nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi salafkii saalixaha iyo saxaabadii iyo atbaacdoodii iyo dadkii wanaagsanaa dariiqoodii allah inagu ilaaliyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala haynagu dilo hana inagu soo saaro abaalkeeda aakharana ilaahay hayna siiyo tabaaraka wa tacaala hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakum allahu khairan